وأدوها أول. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ومقعي وحدي هذا آذن عبد الفارح عنكم مقع دير هاي آذن صنكة. الشقة أنا هاي أنا وحوي تتركيجا ماذا حترت ماذا جبلان. waxaad marka hore nooga warbixisaa tartamada guud ee xiriirka kubadda cagta Jubbaland ay qabanaysa iyo kuwa qorshaysanba. waa mahadsan tahay tartamada u qorshaysan xiriirka kubadda cagta Jubbaland maalinta Khamiista ah hadduu alle idmo waxaa furmaya tartankii iskuulada oo 14 iskuul ah loola ay jiraan iskuulo badan oo ay wasaaradda waxbarashada ay ka soo tagtay laakiin waxay noo soo diiwaangeliyeen 14 iskuul anaga xiriir ahaana maadaama qaylo badan ay timaadeen laba iskuul oo kamid ah iskuulada ka dhisan ama kamid ah iskuulada degmada Kismaayo iskuulka Badar iyo iskuulka Xalane waxaan oga dhignay 16 iskuul maadaama iskuuladu ay yihiin hamina ay u hayaan sportiska anaga xiriir ahaan labada iskuul dib baan oga jarna tartankii laakiin wasaaradda iyo xiriirka waxa loo soo gudbiyay in la qabto 14 iskuul anaga markaa waxaan oga dhignay 16 iskuul anaga aan fiirinay macnaha baahida ay u qabaan dhalinta iskuulaadka dhigtaan ayna ka soo baxaan dhalinta yar oo yacni gobolka iyo qaranka wax ay u tarayaan hadhow haday soo baxaan dhalintaasi waxaan uga faa'iideysanaa maadaama ay ilqabata aysan ahayn ciyaartooy isha qabanaysa aysan ahayn oo iskuulada ay dhigtaan laba mar oo kale ayaa la dhigay oo laakiin hal san gudihiisa laba tartan iskuulada la qabtay taasi waxaan ka maraqashanaynaa insha Allah in laga dhigo in iskuulada ay noqdaan in sanadkiiba mar si uu xiiso u yeesho ciyaartooyduna ay soo gaaraan oo ay ka soo baxaan ciyaartooy tayo leh oo aqoon leh oo gobolka uga faa'iideeyo wayay inta marka laga soo laabtay tartanka Khamiista iskoolada loo qabanayo waxay uga dhigan tahay in 16 iskool xiriir ku diiwaan galiyaan inay tartan iskoolaadka u qabtaan sida oo la socotaanba wasaaradda waxbarashada ayaa ku shaqo leh iskuulada waxayna ka timaaday ayagoo la xiriiray hay'adaha kala duwan ee ka dhisan gobolka hay'adda liyada Mascop iyo wasaaradda waxbarashada ayaa kala saxiixday in iskuulada 14kaas iskuul loo qabto sanadkani tartan anagu dacwo badan oo noo timaaday darteed oo iskuulada nooga timaaday iskuuladii laga reebay iskuulo kamid ah ayaa dacwadooda nagu badatay marka wixiina markay yihiin isdhexgal bulsho kuma fiicno macnaha in la kala reebo si oo qayb qaataan tartankan socda ayna ku soo baxaan ciyaartooy wanaagsan ayagana iskuulkuna faa'iido u tahay anaga xiriir ahaan aan dawlad ahaan waxay noo tahay faa'iido sababtoo ah dhalinteena da'da yara oo anaga aan arkayna isha aysan qabanin ayaa meesha nooga soo baxaya marka anaga marka waan fiirina waa tashana waa maraqashoonay xiriirka marka waxaan garanay inaan macnaha ayagana raali ay ku ahayeen in lagu daro tartankaasi wayay inta marka laga soo laabto 16 kamid ah iskoolada magaalada Kismaayo oo tartan ka qayb qaadanaya waxaa jira iskoolo kala duwan oo inta la qabanay tartanka iskoolada waxa ka soo dhaxbaxay xidiga muhiim u noqday horyaalka heerkiisa koowaad iyo kan labaad soo lagama yaabo in marka la arko xidiga kale oo ku cusub kubadda cagta wajigeeda waa sax tartanka waxa loo qabanay waxa weeye in la helo saan hore kugu sheegay in la helo haddii labadii iskuul hadda la qabtay tartamadii aan soo dhaafanay ciyaartooy gaaraya ilaa iyo hal naadi ku dhawaad aan ka helnay oo fiican waxaa kamid ah cuniga u ciyaaro Mujango ay dhahaan da'da yar uga ciyaaro qadka dhexe Cabdi Xaafid kamid ah waxaa kamid ah waxaa kamid ah ciyaartooy fara badan oo ka soo baxday Ganaana oo ayagana saas oo kale faanoole marka waxa weeye waxaan ka rabnaa in aan helno sanad walbaba ciyaartooy da'dooduna aad u yar tahay oo aan ku xisaabtamo oo aan dhahno iskuulkaasi ardaygaas ka soo baxay oo ay xiriir kubadda cagtana ay ku faanaan wayay inta marka laga soo laabto dabcan ciyaaryahanada kala duwan ee kala matalaya iskoolada qaarkood kuwa waa xidigo tayadooda ay wanaagsan tahay kuwana waa kuwa markaasi la qabsanaya liiga kubadda cagta idinka ahaan waxaa jira wax ballan qaaday ama dhiirigelin oo sameeysan xidigada eerka xiriirka marka laga hadlayo markii tartanka la qabanayo waxaa jira ballan qaadyo jiro waxaa jiro abaalmarino koobka cid qaada waxaa jiro dhiirigelin baa jirta sababtoo ah waxaan anaga inta badan waxaa naga dhiirigeliya hay'adaha naga dhiirigeliya hay'adana sidaa wax u rabto uma soo bandhigayaan waxa ayaga dantooda ah ama waxa ayaga ay macnaha ay ku barsgareynayaan waxa ay sitaan bay sameeyaan laakiin anagu waxaa hami inoo ah ama inoo challenge inoo ah ciyaartooydaasi aan arkayno indhaheena ku arkayno oo aan la baxayno hadhowti
cunuga da'yar aqoon leh waxaan aqrin karaa waxna qori karaa in la helo waa muhiim sababtoo ah waagii beriga sanadkii cunug waxba ma qori jirin waxna ma aqrin jirin hadda laakiin modern hadda la gaaray caalamka waxaa laga soo aruursadaa iskuulada tartamada la qabto oo hoose ayaa laga keenaa xeebaha jasiiradaha waxyaabahaasa laga soo aruursadaa marka aniga hadda faa'iido weyn baan qabnaa haddii tartankan aan noo qabsoomo inaan ka heli karno ciyaartooy tayo leh oo wanaagsan levelka aan rabnana aan ka heli karno iskuulada marka faa'iido weyn inoo tahay maxaa intaa marka laga soo laabtay waxaan xirka kubadda cagta Jubbaland tartamada ugu badan ee qabtaan horyaalka heerkiisa koobaad heerka labaad iyo tartanka iskoolada waxaa tahay madaxa tartamada maxaa diidan in tartama lagu qaban waayo meel ka baxsan Kismaayo marka laga soo laabto tartan lagu qabtay deegaanka Barsan Gooni oo tartanka ugu dambeeyay xiriirka uu gacan weyn ka geystay maxaa diidan in tartan lagu qabto jasiiradaha iyo dhulka gacanta ay ku hayaan dawladdu waa noo qorshaysan tahay waxaa processka iskala wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha anagu waxaan nahay fuliyaal xiriirka kubadda cagta oo marka fulinaya wax walba oo wasaaraddu ay ka soo baxdo haddii projectka uu yahay in la heli karo in banaanka loo baxo sida hadda Barsan Gooni oo kale hay'ad baa wadatay wasaaraddana way la shaqeynaysay anaguna waxaan ahayn guddigii farsamada marka meesha ka shaqeynaya xiriirka kubadda cagta haddii la helayo dhaqaale intaa la eg oo banaanka loogu baxayo anigu waan qabanaynaa sababtoo waxaan u shaqeynaa dhalintaan u shaqeynaa waxaan soo saarnaa dhalinta sportsaan soo saarnaa tartanka qayb baan ka nahay waxyaabaha muuqaalka iyo dadka quruxdooda baan soo bandhignaa marka waxaa weeye anagu haddii la helayo dhaqaala banaanka loogu baxayo wax hor istaagi kara mal anigu waan qabanaynaa volunteer taa ugu shaqeynayna dhalinyarada tartanka iskoolada marka uu dhamaado maxaa xigi doona maadaama madax tartamada tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah maadaama uu garoonku ku soo socdo dhismo oo casri ah uu ku soo socdo waa aragta garoonku in la taagan yahay meel la fadhiisanayo male ciyaartooydii iyo maamulkii wax kala hagayay male garoonkii waa iska open marka haddii dhismaha dib u dhaco waxaan rajaynaynaa in kaalin kaab aan qaban doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo haddii dhismihii uu soo hor soo dhaxgalana haddii waaba ogtahay waxba lama qaban karo laakiin ciyaaraha iskuulada haddii dhamaadaan waxaan ku xiji doonaa hadduu alimo kaalin kaab oo ay ka qayb gali doonaan ciyaaraha heerka koowaad iyo heerka labaad marka laga soo laabto ciyaaraha iyo tartamada u qorshaysan waaxda madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ama waaxda tartamada xiriirka kubadda cagta dhismaha garoonka la dhisayo goormuu ku beegan yahay isleedahay wallahi bisha hadda aan soo dhaafno ku beegnaa waxoogaa dib dhac yar baa yimid oo xagga oo maxaa la oran jiray technicalka waxaan rajaynaynaa insha Allah weli ma noo soo dirin CC nooma soo dirin laakiin waxaan rajaynaynaa bilaha inagu soo aadan hadku 10aad ama 12aad midkooda inaan jawaab ka heli doono hadduu Alle idmo laakiin waa nagu taagan tahay in garoonka dhismihiisu uu nolol dhalmayso tarbuun fiican oo wareeg ah oo dadku ay fadhiistaan VIP dadka kala ilaalinaya shabaqa si toos ah ciyaartooyda iyo dadku ay kala duwanaan karaan marka waxyaabahaas badan baa laga rabaa garoonka laga habeeyo waan rajaynaynaa insha Allah in bilaha inagu soo aadan sanad ka dhiman inaan jawaab sax ka heli doono xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waa tahay marka laga hadlay dhismaha garoonka dabcan waxaa hore loo xasuustaa in dhawaan dhismo lagu sameeyay oo aga badan loo dhameystiray oo ay qayb ka hayeen albaabada oo kale tarabuunka in caws macmal la dhigo in biri shabaq casri lagu xiro garoonka waxaa ka muuqanaysa qaybta VIP-da oo kale in qaybta kore saqafka ah marka dabeel inay qaado iyo ma garan karo waxa ku dhacay laakiin qaybta saqafku maqan tahay marka dabcan xiriirku uu ogyahay Soomaa haddaan kala hadlo arrinta oo dayactirkaasi garoonka horta hay'ad baa saa ula socotaan baa hay'ad baa qaadatay xiriirku durjoog buu ku ahaa shaqo kuma lahayn ayaa waxooda watay barnaamijkooda ayaa watay dhismaha cid la weeliso oo aan talo iyo tusaale ka siineysay ma jirin qayb ahaan aniga xiriir ahaan ayagana halkaas saas u dayacay waatii madaxweynaha uu soo booqday oo uu arkay indhihiisa ku arkay waxa ay dhiseen hay'adii baaba arkayso anagana waa aragnaa aniga mas'uul kama ihinbo sababtoo ah waardiye ayaa keensadeen ayaga hoosh ku mashquulsanaa ayaa wax walba oo free u ahaa maamulkeena ka soo dhameysteen marka hay'adii dhistay ayaa la weydiin karaa wax alla wixii garoonkaasi oo xiriirku dabcan dabagal buu lahaa dabagal wuu lahaa laakiin markaas anaga wax nalaga soo xiriir hay'adda la shaqeeya la yiri ama hay'adda macnaha wax alla wixii qaldantaa soo sheegay naliina ma jirin way u madax banaayeen in saqafkiisii qaybkiisii iyo haleynta garoonka qaabka loo dhisabo hay'adda shaqo ku lahayd waayahay solisma dhigi kara marka dhismaha labaad ee la sameyn doono sida mid lamid noqon doono haddii xiriirka aan gacanta loo gelin tan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya baa qayb ka ahba waxaan filaynaa dhismaha ay dhisayaan xiriirada ay ka dhiseen caasimadda Soomaaliya ay ka dhiseen gobolka Banaadir qaybihiisa kale garoomada ay ka dhiseen yuu la mid noqon doonaa insha Allah hadduu ilmo sababtoo ah kan hay'ad ma dhisayso kan Viva xiriirka Soomaaliyana wakiil oga marka anagana waxaan ku nahay
wixii aan tusayna wixii anaga naga qaldan kor joogtan ka nahay oo marka waa ku dhex jirnaaba dadka wax laga weydiinaya anaga waay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa nimankii garoonka naga halay ma noqon doona hadduu alla idmo insha Allah waayahay marka laga soo laabto dabcan garoonka shacabka idinka uga mas'uul ah oo shacabka idinka uga wakiila kor joogto iyo inaad markaas kormeer kula haataan waa qasab iyo waajib idinka idin saaran dhismaha garoonkana dhammaan bahda sportska idinka idinku eegaysaan dabcan dayaca waqtigan ka muuqdana waa mid idinka mas-uuliyadiisa aad qaadanaysaan inta marka laga soo laabto xirrada aad qabanaysaan oo xirro kubadda cagta uu qabanayo waxaa jira deegaanada marka laga hadlayo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo gooweyn iyo waxa ka dhisan kooxo kala duwan oo inta badan mar xaggooda loogu tagay marna iyagu imanayay maxaa diidaya in iyaga looga qabto magaalada Kismaayo tartamo loogu qabto oo aan ahayn tartanka iskoolada ama kii hadda ugu dambeeyo la qabanayo xaafadaha oo kale oo horyaalka heerkiisa kor lagu daro waa su'aal aad muhiim ah goobeen in garoon horta oo la dhihi karo wala booqan karaa kuma yaalo waa aragta banaanka aad aragto waay oo kubaddu 30 minutes ama 20 minutes ay maqnaanayso laakiin waxaan rajaynaynaa in hay'adahu ay naga kaabaan garoonka lagu soo qabtay baarka garoon iska fiican buu ahaa laakiin wuxuu dayactir waxa ka muuqato waxoogaa dhibaatooyin fara badan baa ka muuqda waxaan rajaynaynaa in hay'adaha arrimahaasi aad u xiiseeya isdhexgalka bulshada inay naga kaabi karaan kolkii la helo bad lagu cayaaro oo xakamaysan wax waan ka qaban karnaa laakiin waxoogaa waxa ka muuqda banaanka waxa ka muuqda dayactir la'aan baa ka muuqato garoon aan isku haleyn karin baa ka muuqda cabirkiisii waa qaldan yahay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sanadka soo socda inay wax ka qaban doonaan garoomadaasi way soo arkeen indhahooda wayna soo kormeereen wasiirka socday agaasimaha socday marka waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadka dambe in waji cusub oo sportiska inuu bilaaban doono hadduu aad iyo aad waxaa tahay madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta Jubbaland طبعا مسؤول وتاي حريرك ترتمدا دعاي gudahan waxa jira xidigo xulka Jubbaland iyo horyaalka ciyaaray oo dhawaan markii la qabtay tartankii gobolada tartankii degmooyinka gobolka Banaadir ka qayb qaatay طبعا tartamada la qaban doono ma ka qayb qaadan doona oo Kismaayo ka dhici doono degmooyinka wixii ka ciyaaray tartamada qaban waa ka ciyaari karaan laakiin hadii ciyaaraha heerka koobaad ee ka ciyaareen inta kama ciyaari karaan sababtoo xiriir waxa ka dambeeyay oo aan anaga xiriir kubadda cagta Soomaaliya iyo maamul goboleedyada la isku soo diray oo ahaa hadii nin Jubbaland ka ciyaaray uusan u ciyaari karin heerka koobaad ee caasimadda Muqdisho oo ah inaan macnaha aan kormeer aan isku sameeyno hadii nin xagga ka soo ciyaarana inta uu ciyaari karin marka ayaan dhaxdaasi waxa dhacday in ciyaartooydii oo gobolada u ciyaaray dhamaantood ay u yaaceen caasimadda Muqdisho ay u ciyaareen ciyaaraha degmooyinka markii ciyaaraha degmooyinka ay dhamaadeen ay damacayeen inay u saxiixaan horyaalada kale ee heerka koowaad inay u saxiixaan taasi waxay noqotay xeerka inuu degsanaa ma suurtagelinaynin in laga talaabsado marka waxaan sheegnay in xeerkaasi xiriirka kubadda cagtana uu ka shaqeynaynin Soomaaliya ka maamul goboleedyadana uu ka shaqeynaynin marka ciyaartooy walbaba waa inuu nolosta ka qaataa naadiga uu ciyaarayay uu fasaxaa uu keena xiriirka uu hoostago sida ka bacdi ay xiriir ay wada xiriiraan in ciyaartooydaasi in adigu ciyaaraha uu fasaxay si uu official u noqdo oo hadhowtino asaga la socdo noloshiisa iyo meesha uu asaga u ciyaari doono iyo mustaqbalkiisa sida uu la socdaan xiriirka kubadda cagta ee gobolka Jubbaland wahagaag wayahay inta marka laga soo laabtay tartamada ciyaaryahanadu ay ka qayb galayaan dabcan xidigaha metelaya xulka Jubbaland waqtigan ka muuqda diyaar garow hadii ay tahay inay tartankii maamul goboleedyada dalka ka qayb galayaan hadii ay noqoto inay horyaalada heerkiisa koowaad garoonka inta ugu badan kama dhaco tababar kama dhacaan xiriirkuna marka laga soo laabto shaqo muuqata kama hayaan garoonka waqtigan xaadirka marka laga hadlayo si fiican oo marka laga soo laabto tartamo kooban oo dhaca bal arintaasna naga warbixin arintan kala hadlo tartanka ma socdo anagu hal bil oo fasax aan leenahay sababtoo league macnaha league markuu dhamaado ciyaartooyda hal bil oo fasax ayaa la siiyaa si ay macnaha oo ay nasasho ay u galaan waana aragtay halka bil ee fasax ahaa waxay aadeen Muqdisho ayaa ciyaartooydu waxaana jiro in liiga dhamaaday liigii waxaan dhamaaday abaalmarintii iyo dadkii kooba naadiyaashii kooba kala qaaday kaalinta koowaad kaalinta labaad ciyaartooydii akhlaaqdooda ee kan gool dhalinta waxba anaga wali ma bixinin waxaan hadda wadnaa in macnaha liigii dhamaaday dabaaldegiisii inaan munaasabadiisii inaan dhigno ay hadda noo qorsheysan insha Allah usbuucyada nagu soo aadan si aan u bixino wari liigii dhamaaday
koobabkii naadiyaasha kala qaaday si aan u abaalmarino marka waxa weeye xiriirku wuxuu ku shaqeeyaa maxaa la oran jiray budget ayuu ku shaqeeyaa nidaam ayuu ku shaqeeyaa baro u degsan marka inta la kala maqan yahay nasashaan ku maqanaa ma aan wax aan qabanna maan weyn anaga marka sidaa darteed waxa weeye haddana waxaa noo bilaabanaya iskuullada waxaa noogu xigi doonaa kaalin kaabka noogu xigi doonaa sidaas ayaa teenta marka xiriirka kubadda cagta uu u dhisan yahay waayahay intaa marka laga soo laabto waxaan sii daba taaganay su-aashii ahayd waxaan diyaarinaynaa ku guuleysiga qorshaha ah in xiriirku uu diyaarinayo tartankii dhammaaday dabaaldegiisii dhawaan ayay ahayd mar aan ay soo gaareen xogaha in ciyaaryahanada qaarkood ay ka cabanayaan inaysan helin koobka ay ku guuleysteen oo naadiga dekedaha qaaday xilciyaareedkan in balladihii ciyaaryahanada ugu guulaha badnaa ama ugu goolasha badnaada aan wali guddoonsin xiriirkuna arrinta ay ka aamuseen bartiina aad ku leedihiin baraha bulshadana wax lagu soo daabacay inta badan aysan jirin arrintaasna maxaa ku leedahay arrintaasi cawilow anagu waxa weeye mar walba oo laga bixinaya koob waxaa nooga soo qayb galo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya si ay la socoto adiga waa aragtay ciyaarihii kasima ay qaadaysa koobka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya yimid fagaara wax lagu bixinayo tanna qorshihii oo bay daba socotaa wax anaga aan haysano uma jirto waa intaan aniga xaflad qabana waa bixin karnaa laakiin waxaa la rabaa tournamentiga aad qabato waa inuu xiriirka goobjoog u yahay Soomaaliya uu sasab meel cad uu ku baxo la arkaa way marka taas un baa waxoogo aan suuyso xiriirkii aan ka wasugina waa imaanayna bishaan taas un baa dib dhac keenta maahane anagu wax walba qorsheeda uu naga diyaarsan yahay liigana kor hor u dhamaaday albil fasaxa ku jirnaa haddana waa qorsheeda ku jirnaa wiigagan soo socda insha Allah sidaas looma gudbin miya qaar ka mid ciyaaryahanada iyo kooxaha kala duwan guddiga maamulka looma sheegin may anagu kooxaha lama xiriirno ciyaartooy lama xiriirno waxaan xilnaa ma mas'uuliyiinta kooxaha sitaan xilnaa akhbaarataasna way la socdaan waaya inta marka laga soo laabto sidee loo midayn karaa horyaalada kala duwan ee dalka ama goboleedyada iyo horyaalka dalka oo inta badan Muqdisho uu ka dhaca oo kooxaha Muqdisho ka ciyaaran ba horyaalka dalka matala sidee marka loo midayn karaa sida wala socotaba hay'ad walba hay'ad bay hoos tagtaa anagu xiriir kubadda cagta maamul goboleed baan nahay oo Jubbaland xiriir kubadda cagta Soomaaliya waxa u diiwaan gashay 10 kooxood oo ka dhisan caasimadda Muqdisho anagana maamul goboleedyada waxaan nahay qayb kamid ah horyaaladaas aan nahay xiriirka hadda kobri wuxuu soo gudbiyay in horyaalka tan qaado waxaa la geyn doonaa macnaha caasimadda Muqdisho idan horyaalka qaado oo isla ciyaari doonaan qaybtaasi uu barjeeska uu noogu jiraa welina macnaha noogu socdaa welina maan helin invitation oo macnaha oo faahfaahin maan helin laakiin waan rajaynaynaa insha Allah kan ka qaado inta inuu la ciyaaro mid kale insha Allah barjeeska uu noogu jiraa inta marka laga soo laabto dabcan goorma ayaa la rajaynayaa in guud ahaan xiddigaha ka maqan caasimada kumeel gaarka ee Jubbaland ay dib ugu soo laabtaan oo la ogeysiin doonaa in horyaalada ay dib u furmayaan oo jawiga ciyaaraha la geli doono maadaama maaweynta sportska ay weli dhabta u taagayaan goorma xiriirku ay xidhiin qaban doonaan anigu xidiguhu waxay u ciyaareen naadiyaal kala duwan 6 naadi hadda waxaan filayaa ciyaartooyda nin walbana mas'uul uu hoos tago oo contractiga uu la saxiixdo baa jira marka waxaan filayaa kulay horyaalka markuu kaalinka bilaabanayo nin walba mas'uulkiisa isaga u foon gareyn doona xilliga uu imaan karo laakiin aniga waan shaacinaynaa Janice aan siinaynaa adiga 5 maalmood ka hor baan shaacinaynaa ama week hor aan shaacinaynaa kadib si ay u tabashaystaan nin walba nin ka maqan uu foom gareyn karo uu macnaha uu ciyaaryahan u yeelan karo marka xaggaas ay la jirtaa ma anigu xiriir ahaana waxna la jiro xagga ma jirto sababtoo ah haddii ma ciyaaro maamul goboleedyada la qaban lahaa marka waan dhihi karaa aniga soo xarooda waan dhihi karaa laakiin hadda ciyaar maamul goboleedyada ma jiraan sanadkan wuu baaqday si ula socoto farsamo awgeed u baaqday garoon lagu ciyaarayn laakiin hadda waxaan rajaynaynaa in istaadi Muqdisho la dhameystiray in istaadi Muqdisho insha Allah lagu bilaabi doono ciyaaraha gobolada soo socda ka dhex galo istaadi Muqdisho dabcan wali waxa ku socota farsamadiisii laakiin bilixdiisa qurxoon waxa ka muuqanaysa inuu yahay mid rajo fiican ay ka muuqatay waxaa sanadkan difaacanaysa Jubbaland koobkaas maamul goboleed dalka iyo gobolka Banaadir rajo intee